Goreng may salaamay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta koonfur galbeed madaxa qaybta warfaafinta unroga Onsom gudoomiyaha ururka Bay Women wasiirka warfaafinta wasiir Ilyas iyo dhammaan qof kasto inta fadhiyo mansab kasto isku fadhiyo ku salaame salaamku bacdashe ilmaan hadamo ku dhon agaasimaha TV-ga telefishinka koonfur galbeed usuna si gaar ah salaan gaar ah salaame masasal saaro kor qofkii aan ku tabana oo raal lahaaday salaanta meeyeediyadan ka faraxsana waan hadhowaayay tababarkan oo waryaalka koonfur galbeed awoodiyo korlanka qaado siyo antebiyan arrimaha doorashooyinka may marka hore mahadnagay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sokow Onsom oo may leeyahay dadaal badan ku biyahayto si doorashooyinkan si habsami leh ku qabsanta muddo may hadareertay tababar oo ku saabsanay ciidamada booliska oo lan tababaro si in sugu lahaayeen amniga doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ku qabsoomayaan degmada Baraawe iyo degmada Baydhabo tababarkii madii hadhamaaday hadana may bilaabahaayeen may leeyahay si tababaran si lahaayeen saxafiyiinta si antebiyan may leeyahay arrimaha doorashooyinka warbixinta arrimaha doorashooyinka taasaytii may ku dhiganta meinaha dadaal badan lagu biyahay si qurux badan qabsanta doorashadaas amni ahaan iyo aragti ahaan muuqaalka meelaha ku baho iyo amniga taasaytii anoo ku hadalo afka wasaaradda amniga ma in mahadnagay Amisom iyo Onsom dadaalkii biyahayaan oo ku biyahayaan may leeyahay arrimahan oo doorashooyinka tan kale may dhiirigeliyay tababarku mayna siin kula dardaaramay inisin si nadiif qaadatan waan anfulidan ma tababarka ma dirilay hatta geeka sidii wariinimo warantabi lahaaytay geeka tuko lagu barama laakiin may baahan walko cusub wujiko cusub bilaawdahay hadii doorasho horaan hataa tan qayb gali doorashadii walku duun hatan in dhiido la kiyaab tiradii walku kordhiyahay deegaanadii la balaariyahay waliyaabo ku duun maadaama doorasho dad ban hordaan lahaan aragi hatana tiradii iyo walwal isbedel dhiyahay bedeladaas naftirsha may la faday inaysan siin la jaan qaado lahaayeen oo la soo lahaayeen wasaaradda amni ahaan may siin ballan qaadana insha Allah inuu kula dardaarano ciidamada la hataa barahayo booliska oo doorashada ka qayb qaadayaan inay si habsami leh siin la shaqeeyaan oo siin kula shaqeeyaan may leeyahay howlo doorashooyinka oo had gudub la siin ku soo bina tababarada la habiyaaya ku mid hayati sidii siin lama aamil lahaayeen armoosay siin ku lama aamil lahaayeen marka may buahan qof walba dalshay u si dhisada saxaafadda may ku fadaane hadii uu koonfur galbeed may ku fadaane inay siin qurxiisatan dalkin inay siin qurxiisatan doorashadin qof kasto oo burursan siin horanin la bururna naftirkin wal ku dhuuxdan fiiridan wala isin warku ku qaadahaytan dalka dhibaatada usan jeysado ifaayadu sun leeyniisan ogaatan lankasta oo doorashada ku guul dareysada may aaminsan adaal doro lagu soo bi wal fadaayo dhee sida fadoo adaalada lagu soo bi laakiin may aaminsan adaal doro dheedi lan alla lanki doorashadaas guuleysana may aaminsan adaalad dheedi marka anoo ha koobo doogay may faday iniisin ku fiirsatan wala isin deebiyaasan isin odalkan heeliyaasan isin deegaankan heeliyaasan anta ku hiraasan lanki la dooratay hadii subaha deegaankan heelidan guud ahaan koonfur galbeed dawladdan heelidan shacabkan heelidan yeediyad may la raashin ku bogaadee tan kale may faday iniisin horumarkin ka shaqeeytan madana san laha weydiidan walan xurka leh oo faa'iido leh oo dalka idadka bulshada boonron iniisin dadka ku dhax weydiidan aragtan wari kasto hormaray may ku hormaray
may la raay wal arrimo bulsho am wal saameyn lee weydi saameynta wala lena ma wala destructive ka ma wala burburiyow sileedii ma wala horumarku suubiyow warigo geek samafal ee ma ragaasanaha usoo booming ay ka jar samafal la isoo suubiyow oo lanko uriyaan ama nagadi ama lanko si aragtan waliyaabo badan oo wariyaal badan oo walaasaytii warbixintaas gudbi marka meesin kula dardaaramay iniisin horumarkin ku shaqeeytan horumarkinna ku shaqeeytan dhiniga oo may leeyahay oo dal dhisnimada bini aadamnimadiisin horumarkin ku shaqeeytan iyadaan ka faraxsana mayn rajeey iniisin walaaginta ku faa'iideen dalku walan tar doonaan insha Allah wabillahi tawfiiq wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh